الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya baa leeyahay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir maaha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinaya haddana uu la tegayaa uu ka soo celinaya kaa salaada intuu la yimid in ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaane awliyada istaciinuu bisabri wasalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ceedceedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey haddii masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaara loo jideeyey istaciinuu bisabri wasalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxehan ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaalla saddex baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa wixii uduge udgoon والنساء يا هوينكنا waa lay jeclaysiiyey wajucilat qurratu ayni fi salaa halka indhahayga qalbigaygu ku qaboobayaana salaada laga yeelay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thaabit al-bunani baa loo jiray abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanay saad ku heshay adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa wuxuu yiri kaabatu min ajli salati li 20 sana wa tanamtu biha 20 sana buu yiri salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaaro 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sana waa ku raaxaystaa buu salaadaas kayfiyada salaada aad u tukato noo sheeg baa laga yiri wuxuu niman yahoonu safka markaan gala buu imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsada qalbigayga yawma yaquumu an-naasu li rabbil alamin waxaan ka soo qaadaa safkan masjidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriya ucbudu allaha kaannaka taraah فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابدا سي واحد أديكو أدو جيدو أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا ساقاكو أركايا وحولي مركا وحن كفكرا مركا صلاة دحديدة كي حق مدق إيجي حقي وملايكتو أي قادو لي إلهي باكو يري حسابتا لغو يري صدقا هدانا كي بدحدي إيجي حقي والله قاضي كي يقدم بيي والله قاضي كي يقهر ريي والله قاضي waxay salaadu ii dhamaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baan salaadeeda ku dhamaystaa buu yiri ay raisli ninkuna dareenka ku dhamaysataa masaajid annagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين والركعات دي إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكو جرى صفقة هوري
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo walla bilaabnu midhaahno walla waa ku darragu laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligeen gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا لقو بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يري رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asagaa dhimashada u diyaara man mina laa yakraha almowt dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel lahay ashyaada materiyaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu le lacag haddaad haysa mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو شقد هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكل ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله من الربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jirka la sheegay inay keliya tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso keliyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi idaa saluxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك هدي حقاقت جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عسياقي سكو داعي marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaan ku bixinaynaa hadalkeennii meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doon xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuugahan isku malaynayay buu waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadal kaale 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa leh hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meeluu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin
nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalina innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratulmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leehay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahe xay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey xay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyaa kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaasana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay